qaar ka tirsan haweenka gobolka Togdheer oo maanta kulan ballaaran ku qabtay hotel Ramad ee magaalada Burco ayaa cambaareeyay habdhaqankii dhawaan loola dhaqmay gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga kulmiye mudane Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo isaga xilkii lagaga qaaday shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye dhawaan ku yeeshay magaalada Hargeysa waxaana xubnaha kulankan isugu yimi oo ahaa kuwa tiro badan ay dhammaantoodba ka sinaayeen cambaareynta iyo sida ay uga xun yihiin falkaasi iyagoo dhinaca kalena ku baaqay in nabadgelyada iyo midnimada Somaliland la ilaaliyo isla markaana wax kasta oo dhaawici kara laga fogaado waxaana qaar ka tirsan xubnihii kulankani ka hadlay hadaladoodii kamid ahaa dadka halkan fadhiya run ahaantii waxay u wada yimaadeen muraad dilaaciya qaraqan aanu ka xunahay Cabdiraxmaan oo soo halgamay calanka Somaliland isagoo ahaana xisbiga kulmiye oo hadda ku fadhiyo fiilaanyo aflagaada naga tagimayso aflagaada naga reeban calanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Somaliland annaka iskale ilaa iyo 1960 annaga dad ma naf iyo maalba annagu naga dhamaaday waxaan halkan maanta iskugu keenay waxa weeye inaan ku muujino dareenkeena waxaan tabayno ee jira maanta waxaan aad uga xunahay mar labaad iyo mar saddexaad sidii hablii horeba oo yiraahdeen waxaan ku xunahay in cambaarayn dhankada uga tuuraynaa foolxumadii faxishnimada ahayd ee foosha xumayd ee loo geystay mudane Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Faarax gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga kulmiye waan ku xunahay boqolkiiba boqol aad baan uga xunahay marka waxaan oran lahaa nimankii ka dambeeyay in Cabdiraxmaan Cabdiqaadir waxaan lagu sameeyo oo la kulmo lambar 1 madaxweynaha ka hadlan ugu oran lahaa oo ka hadlaya Cabdiraxmaan Cabdiqaadir falkii lagu sameeyay ee aad u foosha xumaa waxaan leeyahay madaxweynaha shirkii la dhan markii aad joogtay haddii taa lagu samayn lahaa siday kula tahay waxaan u sheegaynaa innagoon ina aayayn oo calanka Somaliland ay mudnayn oo uu yahay calankii ilaa 60kii ilaa subaxan saaka loo soo halgamayay oo kuwa u soo halgamay ee kuwa ay madaxda ay yihiin kuwa maanta aynu ku hadlayno kuwii hooyadu la dhashay ee aabuhu la dhalay waxa weeyaan ninka xumeeyay waxa weeye isaga laftigiisu waa ninkii halkan kana ilaa soo galay haddana dee wuxuu harkiisa ka arkay inagu ma ogin shakhsi kaliya inaga maanta dambigan muu galin waa shakhsi waa wax dawlad gashay waa wax qaban qaabiyayaal galeen waa wax olole laga soo shiray waa wax laga soo fikiray habeena laga soo seexday waxaan aad uga xunahay haddii aanu nahay qaranka ay soo sheegtay walaasheedii ay marka hore iga hor hadashay waxna wax aad loogu xumaado arrimaha foosha xun ee lagu sameeyo maalin kasta madaxda ee iska daba imanaya aad baan uga sii xunahay maanta taagan Cabdiraxmaan Cabdiqaadir waxa weeyaan in madax ahaa imika sugayay horena maxaa ku dhacay ugu soo halgamay kulmiye lagu qabtay hotel Mansoor ee fawaaxish xumada lagaga sameeyay jiidka iyo fadeexada yacni haddii aanu nahay sidii ay sheegeen dadkii iga horeeyayba beesha bari iyo ilaa ceerigaabo ilaa meel walba degan ee garxajis waanu dul qaadan kari weynay waanu ka tiiraanyoonay marka waxa weeye mudane madaxweyne arrimaha noocaasa ninkii shalay garabka ku hayay ee naf iyo maalba kula qaybsaday ee wax walba kula waday dee marka sidaa u gashay cid kalena naf ma haysid yacni doorashadii aanu ku dooranay ee aanu annagu dadkii ku soo saaray adiguba haddaad caqli leedahay waad garanaysaa yacni boqolkiiba 50 bay hoos u dhacday wax maxay ahayd annaga wax tar oo aad noo qabatay iyo waxaan tartay midna ma jirto kama dul qaadan karno arrimaha aad samaynayso mudane madaxweyne George haddii ay dadku dhiig leeyihiin ama caalamkana laga daawanayo annagu weer casbaanu ka xidhanahay arrinta maanta ragayga lagu samaynayo kuwa ku faraxsan ee iyaga la mid ah ee la maxay hayday waxa lagu sameeyo yacni kursigii isla daqiiqadii ninkii la jiiday halkan la geeyay mid kale uu ku fadhiistay waxaanu sidiqayna maaha waxaanu ogolahayna maaha waxa weeye
وحلي هدو داقي راح كسيو ضرورة هدو كجيت شوكاجة درعة بيادي لودي درعة بيادي لودي مركي لو جرب جرايي الرجل كسوس عليهن درعة بيادي لودي مدن مدح وين السينايو مركل هبين كيسة حطه أي مسكح ضعضو خاص سجون نقطة ugu dambeyntiina kulankani ballaaran ay isugu yimaadeen qaar ka tirsan haweenka gobolka Togdheer ayaa ku soo beegmaya kulamo istaba joog oo lagu cambaareynayo falkii dhawaan ka dhaxdhacay xisbiga kulmiye isla markaana lagu dhaqmay gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga kulmiye mudane Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo isagoo laga xayuubiyay xilkii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi uu ka hayay iyadoo isla markaana haatan gudoomiyaha xaalad caafimaad darteed dalka dibadiisa loogu qaaday